Virtual Local Area Networks ma loo soo gaabiyey VLANs. casharkan waxaan ku qaadanaynaa VLANs waxay yihiin iyo sida configurationkooda loo sameeyo adigoo isticmaalaya Cisco Packet Tracer. Sawirkan topology-gan idiin muuqda wuxuu ka kooban yahay 4 computer iyo xabada switch. xabada switch 4 computer isku soo xidhaya. Computerada configurationka ku sameeyay kaliya waxa weeye inaan IP address soo siiyay. IP addressna sida loo soo siiyana aad bay u fududahay. Computerku baad click siinaysaa waxa ku soo baxaya desktop dabeetana waxa tagaysa IP configuration. IP address kan soo siiyay saddexda god way ka sameeyeen yihiin 192.168.10 kan waa 1 kan godka ugu dambeeya 2 3 iyo 4 same network bay haystaan. haddana computeradana way wada bin garanayaan without VLAN wax dhibaato ma jirto. haddii aan isku dayno inaan bin garano computerada kale waxaan leenahay ping 192.168.10.2 computerka dhankiisa bidix xiga. jada sarun baan taabanaya waxaan bedbedelaya IP addressida sidaan u aragno inuu dhammaan uu fariintaasi ay wada gaadhayso. afarta computerba way is arkayaan. waxaan eegaynaa address resolution protocol isna wuxuu hayo. waxaan arkaynaa halkan IP addressidii computerada iyo MAC addresskoodii. marka communication wuxuu ka dhexdhacayaa dhammaantood way wada arki karaan. haddaba VLAN shaqadiisu waxay tahay inuu kala xidho computerada halkan inoo yaala. halkan switch kala soo qabsan leen oranaya labada sarena hal switch ku xidhnaadaan labada hoosena hal switch ku xidhnaadaan adigoo xabada switch isticmaalaya ayaad shaqadii kala qaybinaysa oo shaqada sida loo kala qaybinayo VLANaad ku kala daraysa. waxa leedahay qoladan sarena hal VLAN ah hasla hadli doono markaas qoladana VLAN kala ahaadaan dabeetana kuwaas un baa gooni iskula hadli doona. VLAN ku marka waxa weeyaan waa switch kaagii oo kala xidhxidhid si virtual ah ma jarjaraysid oo meeshaarinta soo qaadaysid switch kama kala gogoynaysid laakiin virtually ayaad kala xidhxidhaysaa. wixii isku VLAN ayuun baa fariimo isku diri kara. configurationkooda marka doonaysid inaad samaysid waxa muhiim ah inaad ka warhaysid mid walba interface-ku kaga xidhan yahay. interface-kan kaga xidhay marka waxa weeyaan fast internet 0/5 iyo 0/6 ka kalena waxa weeyaan 0/9 iyo 0/10. haddaad physicalka aad ku dhufatid maybe halkan aad ka arki doontaa. haddaad dul istaagtid cable-ka wuxuu kuu sheegaya godkaad kaga xidhan tahay fast internet 0/5 ka ku xigana waa 0/6 waan kala fogeeyay kana waa 9 kana waa 10. marka labada nooc aan doona hal VLAN bay ku jiraan. labada nooc aan doona hal VLAN oo gooni ku jiraan. sawirkan saad u soo saartid waxaad u baahan tahay inaad tagtid halkan navigation panel dabeetana aad ku dhufatid halkan rack switch-ka dabeetana aad raahid jump to selection. waxa ku soo baxaya page-ka ana zoom baad oran kartaa marka shaashadooda yareyn kartaa reset oo zoom in. waayo ku soo noqo logical view-geeni waxaan u imanaynaa switch-ka. switch-ka markaan u imaado waxaan soo dooranay halkan CLI command line interface shaashadana little bit noo yara weyneeyo enter couple of time aan ku dhufto enable dabeetana waxaan leeyahay show MAC address dash table. MAC addressku ka warhaya aan eegno. halkan VLAN waxaad arkaysaa inay dhammaan ku wada jiraan VLAN 1 computer walba afarta computer MAC addressyadoodu waa kuwa godadka kaga xidhnaayeenna waa kuwa. waxaan eegaynaa VLAN ee hore u jiray. waxaa jira VLAN default ah oo loo yaqaano show VLAN brief. marka tiraahdo waxa ku soo baxay VLAN 1 oo kii default-ka ahaa dhammaan inta interface oo dhan ay ku wada xidhan yihiin iyo afartan VLAN aan la isticmaalin ee legacy protocols-kiiha. waayahay VLAN sa loo sameeyo waxaad tegaysaa global configuration mode waxaad leedahay VLAN then ID baad siinaysaa. ID-gaasi any number buu noqon karaa between 2 ilaa laga gaadhayo normal range-ka oo ah 1001. marka waxaan leenahay VLAN 10 optional magac baad u bixin kartaa. waxaan leenahay ICT exit baan leeyahay. VLAN waxaan soo sameynay ICT loo yaqaano ID-giisuna waa 10. VLAN kalaan sameynayna qolada hoose ugu talagalnay waxaan leenahay waa VLAN 20 namekiisana MGT for management. labada VLAN waan sameynay si aan u xaqiijino VLAN-adaan sameynay waxaan leenahay show VLAN brief laakiin show halkan kuma shaqeynayso waxaad ka horeysiinaysaa maxay do. halkan waxaa idin muuqda markaa labadii VLAN aan sameynay laakiin wax interface oo haba yaraatee ku xidhan ma jirto. marka VLAN-adana way iska yaalaan wax shaqo haba yaraatee ma qabanayaan. marka waxaan leenahay fast internet 0/5 iyo 0/6 waxaad keentaa ICT-ga 9 iyo 10 waxaad geysaa management-iga. markaas aan u sameynayna taas anaga halkaa joogna ayaan leenahay interface range. labada interface ba marban wada gelaya fast ether
net 0/5 up to 6 labada interface hal mar baan wada gelaya switch port mode access by default waa access laakiin gacantaas ka baratay in access ka dhigto switch port access VLAN iyo VLAN kaad ku biirayaan VLAN ka ku biiran waa VLAN 10 exit kan leeyahay interface-da halkaan ka muuqata waa la daminaya dib baa loo daaray VLAN 1 baa laga soo saaray VLAN 10 baa lagu daray interface range ka kalena waan bedelayo waxaan dooranayaa 9 to laga gaarayo 10 isna sidaa leeg switch port mode access VLAN 20 labadii VLAN baan ku kala daray waxaan leenahay and dabeetana show VLAN brief aan fiirino waxaa meesha iska bedelay labadii VLAN waa kuwaas way noo yaalaan interface-yadiina waan ku soo darnay waxaynu harsan inaan qadana checkerna show MAC address table wax farriina haba yaraata MAC address-kan ku hayna ma jirto uu tirtiray then xoogaa orange-kana markuu green isku bedelo farriintii pink aan ku celino labada computer sare way is arkayaan labada hoosena gooni way isku arkayaan laakiin talantaalik iskuma arkayaan kuwan sare iyo kuwan hoose farriintoodu waa inaan isgaadhin markaasaad caddayn kartaa in VLAN-kii uu ku shaqeeyay ping waxaan leenahay 192.168 waa jaarkiisii waa gaadhaya kuwa hoosena .3 buu ka bilaabmaa farriintaasi waxaan soo baxi doontaa request time it out farriintaasi way gaadh waayeysaa jihada saraan taabto request time it out baa halkan soo bixi doonta si aan u aragno labada computer hoose MAC address-yadooda VLAN-ada ku kala jiraan waa inaan ayaga u tagaa aan farriin ka soo dira marka computer-kan aan tago isna farriin aan u diro computer-ka jaarkiisa isku VLAN-ka yihiin ka sarana aan tijaabino in case inay wax isbedelayaan kale 4 waa ka jaarkiisa waa soo jawaabay 1na aan eegno oo ah computer-ka ugu sarreeya ku qorantay PC0 farriintaasi VLAN-ka kala xidhaya haba yaraatee magaba 4 farriimood taawan mayna control C baan taabanaya waan iska joojinaya switch-kan kusoo noqonaya switch-ka jihada saraan taabanaya bal muxuu MAC address ka warhaya halkan sida dii muuqata labadan sare waxay ku jiraan VLAN 10 labadan hoosena maxay ku jiraan VLAN 20 VLAN-ada shaqada qabtaan waa intaas inay kala xirxiraan virtually switch-kaaga intaasoo VLAN baad ka samayn kartaa oo qolo walbana gooni baad u xidhi kartaa